beeraleyda ku dhaqan deegaanka Dibiriq ee galbeedka magaalada Kismaayo ayaa si rasmi ah u bilaabay tacbashada beeraha iyaga oo ka faa'iideysanaya xilli roobaadka guga ee sida wanaagsan uga da'ay gobolka. Dadka deegaanka ayaa u jiheystay dhanka wax soo saarka beeraha si ay ugu maareeyaan noloshooda dalagga ay xilligan beerteen. Waxa ayna wasaaradda beeraha iyo waraabka Jubbaland ka codsadeen in ay ka caawiso daaweynta beeraha iyo dhanka qalabka tacabka beeraha loogu talagalay. beertayda alxamdulillaah rabbil caalamiin waan fashaa wuxuu ilaahay iga siiyaan ka cunaa ma garata xoogaygaana isticmaalaa ka cid kale wax igu kaalmeysay wax igu caawiso midna ma jirto anigaas xoogayga isticmaalo wuxuu ilaahay iga siiyana waan ka qaataa oo nacfi siday sanada noqoto waay sanada un bay ku xiran tahay iyada matoor ma saarna oo lama waraabinayo raxmadaas ilaahay baa la sugi raxmada ilaahay markuu noo keenay sidee uu ay noo noqoto mar waa iska sanayro mar waa aaran markay aaran tahayna alxamdulillaah rabbil caalamiin badar baa laga helaa markay sanayro tahayna hadda baba laha sooma wax weyn baa noo dhaxay aniga dalkayga hooyo baan rabaa inaan ka shaqeysto taariib uma jeedi cunugan dhalay inuu taariib aad raali kama ihi qof hela aan aniga ahay oo macnaha markaas aniga hilibkayga ku yaal wiil Soomaaliyeedna inuu taariib aado kulama talinay inay dalkooda ka xamaashaan dhagax ha qotaan geed ha goostaan beer ha fashaan wadankeena wax laga waayo male wasaaradda beeraha waxaan u dirsanaynaa wax walbaan u baahanahay daan beeraaleynahay daawaan u baahanahay yaambooyin baan u baahanahay abuur baan u baahanahay dhaqaalaha u baahanahay dad duur jooga xaaladiisa oo ka warqabtaa beer farataan nahay xoogsatee muruqmaale roobka dalag wax ku beerano 2500 beeroodna waana oo gacan farato u badan oo roobka ku isticmaasho waraab ahayn marka beeraha wasaaradda waxaan uga baahanahay Jubbaland hoos timaado inay naga caawiso abuurka makiinadaha sidoo kale waxaan ku oray maalgelinta dalagga beeraha walba ku yaalaan inta galleyda moordada looska sisanta geedaha noocooda kala duwan digirta saytuunka limada romaanka nooc walba ku yaalaa faa'iidadeeda waa waxaan abuurnaa tacabkeeda xilliga roobka la dilay markii la gaaro wax walba dalag kala nooc kala duwan baan ku abuurnaa hadba si baan u abuurnaa xilliyadan oo kale xilli laga faa'iideysanayo sisanta iyo galleyda moordada masigida nooc walba khudaarta ayuu nooc xilligan ka faa'iideysanayna Dibiriq la yiraahdo tuuladan gol ma ahan waxyaabo badan aan ka caawinaynaa cagaf waan rabnaa waxyaabo badan abuur waan rabnaa dalag hadba si waxyaabo badan sida beeraha u baahan yihiin u baahanahay aaladaha kala duwan sida beeraha wax lagu falo cagafta abuurka waxyaabo badan u baahanahay in naga caawiyo gudoomiyaha guud ee deegaanada galbeedka magaalada Kismaayo Maxamed Yacquub Cabdi ayaa sheegay in dadka deegaanka ay u baahan yihiin in lagu karabsiiyo wax soo saarka beeraha si ay isku filnaansho u gaaraan waxa uuna ka codsaday wasaaradda beeraha Jubbaland inay booqasho ku timaado beeraha ku yaala deegaanada galbeedka Kismaayo waxa aagan ka jira baahiyo aad iyo aad u baahsan oo dhinaca beeraha dadku waa beeraley inta badan Soomaalidina waxa way laba walxaaday ana inta badan ay ku dhaqan tahay oo ay tabcataa sida tacabka beeraha iyo dhaqashada xoolaha tuulada intaba Ilaahay baa makanisiiyay wayna leedahay waxaan rabaa marka inaan dul istaago beeraha ilaa gaaraya 1300 ayaa tuuladan hoos yimaada tuuladan waa tuulo qadiimi ah isla markaasna ay dhul beeraad aad iyo aad u qurux badan uu ku yaal waxaan ka codsanaynaa wasaaradda beeraha sida makiinti halkan iskama bixin karaan dadkan dad dan yar waaye saacadda makiinta waa $20 beeraha inta aan ku sheegay saacaddi makiinna la gelina hadii la yiraahdo waa $20 boosta yacnaha la bahalkee oo qofka boostada gacanka oo caadi oo loo fala la fala hadii la dhahana boostadii waxa waaye $2 ilaa iyo $3 marka waxaan ka codsanayaa hay'adaha
ku shaqada leh beeraha oo ay ugu horeyso wasaaradda beeraha waxaan si naxariis leh ugu codsanaynaa inay deegaankan soo booqato ay yimaadaan ay fiiriyaan baahiyaha ka jira ay arkaan waayo dhulkan baaxadda leh aad arka haysaan dalab walba uu ku yaala waxaa ku yaala galeydii waxaa ku yaala looski waxaa ku yaala afakaadhihii waxaa ku yaala timirtii waxaa ku yaala saytuunkii waxyaabo fara badan oo ilaahay uu ku manaystay digirtii qarihii waxaasoo idlaa ka imaanaya laakiin waxay rabaan qofka in la gaarsiiyo iyadoo roob yarow waxay iska jiraan oo la og yahay galeyda hadda waa arkaysa xilligii sida moordeyda camal xilligii oo la goosan lahay joogtaa waxay la hagaasan tahay waxaa waaye waa daawo la'aan beeraha waxay u baahan yihiin daawo maxamuud cali xasan Puntland TV magaalada Kismaayo.